Wararka ka imaanaya dhinaca iyo magaalada Kismaayo ee xarunta ku meel gaarka u ah maamulka Jubbaland ayaa waxa ay sheegayaan in iminka halkaa ay ka socdaan kulamo gaar ah kuwa oo ay leeyihiin madaxweynayaashii hore ee dalka u soo maray sida Xasan Sheekh Maxamuud iyo Shariif Sheekh Axmed. Sidoo kale kulanka waxaa goobjoog ah oo iyaguna qayb ka ah madaxweynayaashii hore ee maamul goboleedyada Koonfur Galbeed iyo Galmudug ee Shariif Sheekh Xasan iyo waliba Cabdulaahi Xuseen Guuleed. Wararka ayaa waxay intaas ku darayaan in kulanka uusan ka marnayn madaxweynaha Jubbaland ee dowladda federaalka iyo waliba beesha caalamka ku eedeeyeen inuu isdoortay. Kulamada gaarka ah ee looga adeegsanayo xaaladda dalka sida ay sheegeen madaxda ku sugan Kismaayo ayaa waxa uu salku ku hayaa khilaaf soo kala dhexgalay qaar ka mid ah madaxda halkaa tagtay iyo waliba dowladda federaalka ee Soomaaliya. Madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Madoobe oo goor dambe xalay warbaahinta la hadlay ayaa waxa uu sheegay in martida Kismaayo ku sugan aysan u imaan oo keliya ka qaybgalka munaasabadda caleemasaarka ee xafladiisa, balse ay salku ku hayso imaanshahooda kulamo looga adeegsan doono xaaladda dalka siduu hadalka u dhigay. Qaar ka mid ah xubno ku dhow madaxtooyada Jubbaland oo aan telefoonka kula hadlay ayaa waxay xaqiijiyeen in ilaa iyo xalay ay kulamada joogto ay yihiin oo aan loo kala kicin oo madaxda halkaasi ku sugan ay isu arkayeen si gaar ah iyadoona maanta la filayo in kulan guud ay halkaa ku qaataan. Sidoo kale falanqeeyaasha siyaasadda dalka ayaa waxa ay cabsi xoog leh ka muujiyeen kulamadaasi ka soconaya Kismaayo maadaama Kismaayo hore loogu soo dhisay madasha maamul goboleedyada kuwa oo sheegay in ay xiriirka u jireen goor dambana ay burbureen, balse hadda ayaa cabsida ugu weyn waxaa laga qabaa in halkaa urur ka dhan ah dowladda federaalka ee Soomaaliya ee hogaamiyo madaxweyne Maxamed Cabdulaahi Farmaajo.